gadomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa caqabad cusub wajahaya isagoo oo gadoomiyey xalayto mooshin ka dhan ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. waxa uu haatan wajahaya caqabada hor leh oo uga imaanaysa dowladda federaalk soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ayaa gadoomiyey safiirka cusub ee dalka suudaan ee soomaaliya warqadihiisa aqoonsiga isagoo ku casuumay aqalka madaxtooyada ee villa soomaaliya. safiirka suudaan ee soomaaliya ayaa warqadihiisa aqoonsiga waxa uu u gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ayaa safiirka dalka turkiga waxa uu ka gadoomay warqadihiisa aqoonsiga ee safiirnimo, waxaana uu kula kulmay madaxtooyada soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa national theatre shalay waxa uu dhagax dhigay dhismo cusub oo halkaasi laga hirgelinayo iyo dayactirkii dhismihii hore ee national theatre. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ayaa la arkayay isagoo oo halkaasi ka shaqaynaya oo mashruuca ay dowladdu ku dhawaaqday ee ah in iskaa wax u qabso lagu dhiso mashaariicda horumarinta dhulka dowladda iyo meelaha lama maarmaanka ah. kumanaan shacbiga soomaaliyeed ayaa ka qayb qaadanaya horumarintan uu madaxweynuhu ku baaqay ee barnaamijka isku tashiga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed. dowladda oo hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhalatay 8 February ee sanadkii 2017. waxaa iminka joogtaa dowladdani 2 sannadood oo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ay 2 sano oo dalka ka jidhay ayna gaarsiisay horumarin dhanka waliba ah dhanka arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha dalka Soomaaliya.